kulanti wacan daawadayaasha ku xiran janaalkan Shabeellaha TV ku soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan waxaan kaga hadli doonaa qaniiskii Soomaaliga ahaa oo si xun loogu dirdilay laamiga dhaxdiisa. laga roonahan oo magaciisa u bedelay Queen Selina ayaa waxa uu ku nool yahay dalka Finland. qaniiskan ayaa sameystay naaso sidoo kalena waxa uu iska jaray xubintii taranka ee ragga isagoo sameystay xubinkii dumarka. subhanallah, muuqaal laga soo duubay xilliga sida xun loo dirdilayay qaniiskan ayaa si xoogan u qabsaday baraha bulshada, taasoo dad badan oo Soomaaliya ay aad ugu farxeen in sidaas isi ka daran loo dilo qamaluudkan. sidoo kale warar hoose oo aan helnay ayaa sheegaya in qaniiskan laga yaabo in loo musaafiriyo dalkii uu asal ahaan ka yimid ee Soomaaliya. haddaba daawada ila daabo muuqaalka qaniiska oo si xun laamiga loogu bahdilay looguna jiidayo. Don't touch, no, don't touch me, 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 Hamas, don't touch me, don't touch me, don't touch me, don't touch me, Marvin, because I dare you, because I dare you, Alakoske me, Alakoske me, Alakoske me, because I dare you, Mon me home, hey, Mon home, me, Mula home, me, Mula home, me, Mula, hey, Mula home, me, hey, Nigga mountain, where are you? Nigga mountain, and Minateno, Mita. I always finish. I always finish. Mita mountain, Mount Nile,
waad ku mahadsan tahay daawashada aad daawato muuqaalkan daawaday haddii ay tahay booqashadii ugu horeysay ee aad ku timaado janalkan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa inaad janalka subscribe aad saarato furatana gambaleelkaasi ay ku soo gaaraan barnaamijyada warbixinada iyo wararka degdega ah ee aan halkan ku soo baahiyo mahadsanid